Assalaamu calaykum ardayey, waa macallin Mustafe ku soo dhowaada xaqa deriska sheeko yar oo aan idiin akhrin doono hadduu Ilaahay idmo. Xaqa deriska ama deriskaagu xaqa uu kugu leeyahay sheeko ka hadlaysa. Beri ayaa waxaa deris ahaa laba reer ayaa isku meel deganaa. Reer waxa uu ka koobnaa aabe, hooyo iyo gabar ay dhaleen. Reerka kale waxa ay ahaayeen oday iyo islaan waayeel ah oo aan carruurba dhalin. Hooyada reerka kale waxa ay maalin walba soo booqataa ama ay aadaa deriskeeda, waxa ayna ka caawisaa hawsha guriga ama wax walba oo caawin ah oo ay u baahan yihiin. Gabadheedii yarayd ayaa weydiisay, hooyo, maxaa maalin walba u aadaa reerka deriska ah? Hooyadii ayaa tidhi oo ugu jawaabtay inanteedii ama gabadheedii, hooyo, derisku xaq ayay ina ku leeyihiin oo diinteenna ayaa ina fartay. Su'aal: waa maxay deris? Xaq miyuu deriskaagu kugu leeyahay? Maxaa ka mid ah xaqa uu deriskaagu kugu leeyahay? Koox u dooda ardayey ama mid uga jawaaba su'aalahan 3 su'aalood. Waa maxay deris ama deris muxuu yahay? Xaq miyuu deriskaagu kugu leeyahay? Maxaa ka mid ah xaqa ama xuquuqda uu deriskaagu kugu leeyahay? Aad baad u mahadsan tahay. Assalaamu calaykum.